وين أهلا وذا قورسدو ما أها وحكو عصب دقان كصوماليدا لكن وحا أقب إن لبها بلود أو قشانتئة هل مرلا وذا مهرسدو للانا أقل قلو سحرديد إبراهيم عود أيا دوان أروسي لبا قبلود أو كلا إقراء إبراهيم أحمد إيا نمعو مهد حسن إلا يرانتيدي وانكوامي جري waxaan ku dhawaan jeclaa inaan aroos ballaaran ii dhaco labada dumaraan mar wada arooso ka bacdi markii dambe aan ku guulaystay maasha Allah waa dhacdo naadir ah maxaase ku kalifay Bashiir waxa weeyaan horta markii hore labadaba mid basi gaar ah oo sheegsan jiray dadkan labadaba way jeclaan si dhabe labadaba way jeclaan ka bacdi markii dambe aan isku keenay isku sheegay horta aan isku keenay isku sheegay markaan isku sheegay isma qladeen yaga baan isma qala ayaan habeenkii dambe isku keenay Bashiir waxa uu watay qorshe cad balse sidee buu ugu soo bandhigay hablaha uguna qanciyay nimco iyo iqra waxay u sababeeyeen inay aqbalaan guurka caynkan ah jacayl ay labadooduba u qabaan Bashiir waxayna sheegeen inay iyagu doorteen aroos laba geesood ah si aysan u kala masayrin markii horeysay intaan aan ismehersan ee sheekada ka hortay yuri adigana waan kula sheegay inaan kala sheegay labadiina ma wada jecel waxaan doonayaa inaan marigooda gurso si hadii aan idin kala horeysay almaana oo aydan u hinaasin de waxaan ku kala deel kala horeysay kulli qasabta hinaasa waa imanaya tan ugu horeeyay waa hinaasa hadii ka tooga horeysan waa hinaasa saata waa qasab u imanaya marka ku dhisku marna uga dhigisku marban ka dhigay buu waan ku aqbalay waan ku heshinay ma sha Allah anaguna de markaan ilaa weydiiyay mid walba tiraan ku qanacsanahay saddexdeeda waan isqaabilnay laakiin sheekadu markii sida ahayd ka bacdeen wuxuu noo soo dejiyay inuu marna wada guursado ma sha Allah anaguna waan ku qanacsanay waana ka aqbalnay Bashiir waxa uu ka shaqeeyaa dhismaha guryaha walow ay bulshadu aad ula yaabtay guurka Bashiir haddana waxa uu rajaynayaa inuu mar kale laba dumar ah wada guursado haddii uu dhaqaale u helo balse su'aashu waxay tahay haddii uu hirgeliyo damaciisa cusub iqra iyo nimco ma ka masayri doonaan